assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada barnaamijkeenii ee qisooyinka nebiyada iyo qiso cusub. qisadani waa qisadii nebiyullah nuux calayhi salaam. si aad qisooyinkiina aad la socoto, ha ka ilaawin janalkeena sabskribe, like, sheer si ay sheekooyinkeenna dhammaan ku soo gaaraan. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. mar labaad iyo qiso cusub. qisadani waxaan ka hadli doonaa nebi nuux calayhi salaam. qisadeeni koowaad waxaan ka soo hadalnay nebi aadam calayhi salaam. nebi aadam intuusan dhimanin carruurtiisa wax badan ayuu kala dardaarmay. dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa alla inay caabudaan keligiisa, aysan wax kale la shirkin, iyo shayddaanka ay iska ilaaliyaan. nebi aadam markuu dhintay, rag wanaagsan ayaa bacdigiisa soo baxeen oo culum ah oo dadka diinta bari jireen. raggaasi wanaagsanayeen bacdigooda cid kale ma soo bixin oo dadka diinta bara ama xasuusiya. geerida nebi aadamne waxaa laga joogay 1000 sano. marka dadkii diinta way ilaaween, cibaadadii way ka tageen, dembiyada iyo fisqigana way bateen. taasi ibliis jaanis ayuu u arkay oo dadka ayuu ugu waswaasay in raggii culummada ahaayeen si ay u sameeyaan sanamyo si loo xuso raggaasi. dadkii jaahiliinta ahaayeen ibliis taladiisa ay qaateen, culummadii ayay sanamyo u sameeyeen. culummadaasna waxay kala ahaayeen wadda iyo suwaaca iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasr, siduu alla qur'aankiisa magacyadooda ku sheegay suuratu nuux. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. sidaasi ayaa culummadii sanamyo lagu sameeyey. dadkii sanamyo caadi ah ayuu arkayeen, marmarna bay xusayeen culummada. laakiin muddo kadib ibliis rag kale ayuu soo adeegsaday oo dadka diinta ka lumiya. raggii dadka ay soo dhex galeen waxayna ku dhaheen ilaahiina ma taqaaniin. dadka qaarkooda waxay dhaheen ma naqaano. markaas ay u tilmaameen sanamyada raggii culummada ahaayeen, waxayna dhaheen sanamyadan ayaa ilaahiina ah. dadka jaahiliinta iska ahaayeen way aqbaleen. sidaas ay dhammaantoodana muddo kadib ay u aqbaleen oo sanamyadaasi u caabudeen. dhammaantoodana sidaas ay ku gaalooween. qoomkaasi hal nin ayaa ku dhex jira oo diinta aabbihiisa iyo awowgiisa nebi aadam haystay, waana nebi nuux calayhi salaam. nuux arrinta dhacday aad ayuu ugu murgay. keligiisa ayaa alle caabudayay, laakiin dadka kale alle way ku shirkiyeen. habeenada ka mid ah asagoo arrintaasi ka murugsan ayuu seexday. farxad ayuu la soo kacay. farxaddaasoo ah alle ayaa xil u dhiibay. wuxuu qoomkiisa u noqday nebi iyo rasuul oo diinta dib dadka ugu soo celiya. sidaasi ayuu ku noqday rasuulkii ugu horreeyey oo qoomkiisa loo diro. nuux dacwada ayuu bilaabay. qoomkiisa ayuu dhexgalay. diinta saxda ayuu u sheegay. way ka qaadan waayeen. sannado fara badan ayuu wacdinayay. ilaa 950 sano ayuu dadkiisa ugu wacdinayay. qaala tacaala: qaala rabbi innii dacawtu qowmii laylan wanahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaaraa. rabbiyow qoomkayga haween iyo maalin ayaan u wacdinayay. sidoo kale wuxuu yidhi qaala tacaala: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. mar walbaan u wacdiya amaan diinta xasuusiyo, dhagaha ay iga daboolanayaan, marna wejiga ay iga daboolanayaan. wayna ku adkaysteen shirkiga, si xad dhaafna way u kibreen. nebi nuux calayhi salaam muddo badan wuu u sabray dadkiisa. keliya waxaa rumeeyey dadka masaakiinta ah. kuwa kale waxay dhihi jireen nuux, adiga anaga camal ayaa tahay, bini aadan ayaa tahay. qaarna waxay dhihi jireen waad waalan tahay. laakiin asaga kama daalin dacwada qoomkiisa heer waxay gaareen
in ninka markuu dhimashiisa ay soo dhowaato carruurtiisa ayuu kula dardaarmaa, wuxuuna dhahaa nuux iska ilaaliya. ugu dambayn nuux allo ayuu gacmaha kor u taagtay markii uu arkay in qoomkiisa rajo aysan lahayn. wuxuu yidhi waqaala nuuxun rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara, oo macnaheedu ay tahay rabbi oo adduunkani hal gaal ha ku reebin. sidoo kale wuxuu yidhi innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara. haddii aad dunida kusii dhaaftid waxay dulaynayaan addoontaada adig ku aaminsan, waxayna dhali doonaan carruur oo gaalo ah. allah subxaanahu wa tacaala ducada nebi nuux wuu u ajiibay, wuxuuna ku amray inuu markib weyn dhiso uuna saaro inta isaga rumaysan iyo xoolaha. sidoo kale allah wuxuu ugu waxyooday dinaarka muufada hadduu biyo ka soo baxo dadka ku aaminsan markibka saar. nebi nuux sidii ayuu sameeyey, markibkii ayuu dhisid ku bilaabay. qoomkiisa kuwa gaalada ah markay arkeen waxay dhaheen nuuxow nebinimada ma iska dhaaftay oo faryaamo miyaad noqotay? nuux warkooda dheg uma dhigin, dhismaha markibka ayuu sii waday. markabkan wuxuu u dhisay qaab 3 dabaq ah. biyaha tanuurka markuu ka soo baxay, nebi nuux wuxuu sameeyey dabaqa hoose xoolaha duurjoogtada ayuu saaray, dabaqa dhexena wuxuu saaray xoolaha la xanaanaysto iyo shimbiraha ayuu saaray. dadka asaga rumaysan waxay ahaayeen ilaa 80 rag iyo dumar isugu jira. wuxuuna saaray dabaqa sare. qoyskiisa waxaa ka raaceen keliya 3 wiil oo asaga dhalay, xaaskiisana way ka hartay iyo 1 wiil. alla ciqaabtiis sidaas ay ku bilaabatay. cirka roob xoog leh ayaa ka imaaday, dhulkana biyo xooggan ayaa ka dilaacay, adduunka dhan biyo ayuu noqday. nuux wiilkiisa ayuu arkay oo biyaha ka cararayo. wuxuu yidhi qaala tacaala wahiya tajrii bihim fii mawjin kaljibaali wanaadaa nuuxun ibnah wakaana fii maczalin yaa bunay arkab macnaa walaa takun maca alkaafiriin qaala saawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illah ilaa man raxima waxaala baynahuma almawj fakaana min almughraqiin. wiilkiisa ayuu ku yidhi markibka soo fuul. wiilka wuxuu ugu jawaabay maya, waxaan fuulayaa buurtaasi. nuux wuxuu yidhi tani buur laguma badbaadayo, keliya waxaa badbaadayo inta alle u naxariistay. gaaladii dhammaan sidaasii biyaha ay ku halaagmeen iyo duufaanka ilaa muddo oo socday. qaar waxay dhaheen ilaa 40 maalmood, qaarna ka yar ay dhaheen. allahu aclam. duufaanka markuu dhammaaday kadib nolosha sidii dabiiciga ahayd ay ku soo laabatay. adduunka keliya waxaa ku soo haray dadka muuminiinta ah. faa'iidooyinka qisadani aan ka faa'idnay: shaydaanka ayaa sabab u ahaa in sanam la caabudo. adeecidda shaydaanka waxay sababaysaa cadaab. nebi nuux wuxuu ahaa rasuulkii ugu horeeyey. duufaanka mucjizo ayuu u ahaa oo alle nebigiisa nuux ku taageeray. alla subxaanahu wa tacaala muuminiinta u badbaadinaa, gaaladana wuu halaagaa. qisada nebiyullah nuux calayhi salaam way noo dhammaatay. qisada xigta waa qisadii nebiyullah idriis calayhi salaam. ilaa qisadaas laga gaarayo beejkeena ama janaalkeena ka ilaawin subscribe, like, share si aad nala socoto mar walba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.